magaalada Den Haag ee dalka Netherland ayaa lagu qabtay kulan isbarasho ah oo lagu soo dhaweeyay danjiraha Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub Mudane Cali Fiqi. xafladaas oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada Soomaalida dalka Netherland. kulankan oo isbarasho iyo ra'yi isdhaafsi u badnaa waxaa ka soo qayb galay Soomaali ka kala timi magaalooyinka iyo gobolada kala duwan ee dalka Netherland. kulankan ayaa ku bilaabmay jawi aad u wanaagsan iyo casho sharaf lagu wada qaatay Prodemus oo ah goobta lagu qabtay munaasabada soo dhaweynta. mudane safiir soo dhawaaw dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantihiin. marka dadka shirka ka soo qayb galay waa dad aad iyo aad diversity aad iyo aad u kala duwan oo ka yimid waddankooda qaybihiisa kala duwan. haddii wax yar aan ka yidhaha Dr. Cali Fiqi wuxuu ku dhashay magaalada Braawe, wuxuu wax ku soo bartay waddankii Soomaaliya, dugsi hoose dhexe sare, wuxuu wax ku soo bartay jaamacaddii ummadda Soomaaliya ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan JOS oo halkan caawi nala joogo Professor Cabdi Faarax oo ahaa gudoomiyey jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed. jaamacadda wax ku soo bartay iyo rag kale oo iyaguna jaamacaddii macallimiinka ahaa isugu jiray rag dhalinyaro ah iyo rag odayaal intaba Professor Cabdi Xamiid, Professor Shire, Senior Muuse, dhammaan waxaan u malaynaa in Dr. Cali uu yahay maaragtay dadkii jaamacaddii wax ku soo bartay macallina ka soo noqday. Dr. Cali markii uu wax ku bartay jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed waxa uu waxbarashadiisa uu ku sii watay waddanka Talyaaniga. milan halkaasuu wax ku bartay, wuxuu ku sameeyay takhasus, wuxuu tegay waddanka Jarmalka jaamacadda la yidhaha Leipzig, halkaasna waxbarasho dheeraad ayuu kusii sameeyey, wuxuu ka qaatay shahaadada PhD. kadibna wuxuu aaday waddanka Maraykanka, halkaasna Cali wuxuu ku shaqeeyay cilmiga uu bartay waa cilmiga sayniska. marka intii Maraykanka uu joogana waxa uu ka qayb qaatay institutiono fara badan oo culumtaas iyada ah wax ka baara. wuxuu wax ku qoray joornaalo fara badan oo arrintaas ku saabsan, wuxuu wax ka qoray buugaag ilaa iyo bishii June sanadkan 2013 oo loo soo magacaabay safiirka Soomaaliya EU iyo Benelux. marka Dr. Cali mar kale waxaan ku leenahay welcome, aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaad noo timaado haddii aan nahay guud ahaan mujtamaca Soomaalida ee Holland. waan isbarano. intaa kadib waxaan jeclaan lahaa inaan hadalka siiyo Sheekh Iker si uu noogu akhriyo aayado Qur'aan ah. Sheekh Iker kusoo dhawow. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Jawaahir Axmed oo ka mid ah Soomaalida degan dalka Netherland ayaa buraanbur ay ku dheehan tahay qiiro wadaninimo ka soo jeedisay madasha. safaarada yeelano no fadhi asafir siliiya sawigiso maali waadaba calanka baluga bahan cawowganahay
qaranka Soomaaliyeed baanu taaganahay oo haddii loo saldhiga sareeda la helahayaa ee sardanaan ku wada sugeynay samaqwa buluglow caalankeeygu waa beerkay awadnaa xidigta dhacda looga beeraanu bagahayaa shantay isku bahadi doontayo lama badalo oo qaranka soo yahay ayuu noogu soconayaa qaranka soo yahay ayuu noogu soconayaa oo haddii loo saldhiga sareeda la helahayaa jannaan ku jirnahayayaan jaahilna laga dhigin jannaan ku jirnahayayaan jaahilna laga dhigin oo jamhuuriyaan nahayayaan jaasasna lagu celin jidadkii waanu furmahayaanayaan la jaarin nabadda waa jecelnaheyaan dhibkala la jaarin ee waraan isku jihidna rabbigeena nala jiri waxaa ugu horreyn warbixin guud ka jeediyey madasha cabdikariim maxamuud oo ka tirsan dalladda guud ee ururada soomaalida dalka Netherland ee EFSAN waxaanu ugu horreyn danjire cali fiqi uga warramay nolosha iyo xaaladda guud ee soomaalida dalka Netherland waxaad ka arki kartaan sheetkan in xilliyadii waqtigii soo galeen Soomaalida bilowgii sagaashameeyadii ilaa iyo 1995 waxa ay xilliga ugu badnaa ay wave-kii koowaad ay soo mareen qaybtii labaad aan hore ku sheegay waxay bilaabanaysay 2007 ilaa iyo hadda imikan oo goordhaweyd waqti dambe ay istaagtay dadka badan waxay u badnaayeen qoysas kuwii hore usoo galay wax soo barta ama magaalooyin ka soo qaxay kusoo noolaa nidaam dawladeed dadka hadda imaada waxay u badan yihiin dhalinyaro oo badanaa waxaan dhihi karnaa waxbarashadoodii aad u liidatay ama waxbarasho la-aan ku dhacday dadka ku nool waddankan Holland waxaa lagu qiyaasaa hadda ilaa iyo 33 kun oo dad Soomaali ah markii ay soo galeen bilowgii sagaashameeyadii ilaa iyo bilowgii ilaa 96 waxaa lagu qiyaasayaa ilaa iyo 30 kun inay xilligaa gaareen oo waqtigii ugu badnayd ay ahayd bartamihii ama bilowgii 2000 saa ka arkaysaan graafikadan waxaa arkaysaa in uu xilliga tirada dadka sii badanayso kadib 2000 wixii ka dambeeyna ay hoos soo dhacayso taasna ka imaaday in dad badan waddankan deganaa ay qaateen jinsiyadii ama shahaadadoodii ama waxyaabo kale oo noloshoodii meel kale macnaha u raadsaday waxay u badan yihiin gobolkan South Holland Soomaalida inta degan oo lagu qiyaasayo ilaa iyo 9 kun xoogaa waxaa ku soo xigta gobolkan la yiraahdo North Brabant oo degta ilaa iyo 6 kun ilaa 7 kun haddaan waxbarashada heerka sare u nimaadno dhanka jaamacadaha waa arkaysaa graafikadan waxay ku tusinaysaa inay 5% oo keliya aan ka qayb qaadano dhanka waxbarashada sare dhanka shaqada oo ah start qualificationska oo dadka Soomaalida waddankan ku nool ay leeyihiin start qualifications waa dugsi sare shahaado qof haysta oo kale oo ta'hiil u sameynaa inuu ka qayb qaato shaqo waxaad arkaysaa in Soomaalida 23% kaliya ay u yihiin diyaar ama dad u diyaarsan shaqada kadib waxaa hadalka qaatay Sheekh Cumar Xasan oo ku hadlay magaca ganacsatada Soomaalida Netherland runtii ganacsiga halkan ka jira ganacsi aad u ballaaran maaha waddankan jaaliyadii ugu ballaarayd waxay ka guurtay 2000 markii la galayay ayay waxay u guureen Ingiriiska oo dadka halkan wax ka qaban lahaa markii halkan la fahmi waayay waddankii adiga culays badan ay ka sheegteen iyo dadkii adiga in badan maaragtay u dareemi waayay furfurnaansho badan oo Holland aysan lahayn saa darteed ayay runtii door bideen inay Ingiriiska u guuraan in badan oo jaaliyadda Hollandna waa in badan oo hadda jaaliyadda Ingiriiska ay ka faa'iideystay dadka ugu dhaqaaqa badan ah wixii intaa ka haray dhaqdhaqaaqa halkan ka jira haddii aan warbixin kooban kaa siiyo runtii ganacsiga Holland gudihiisa waa ganacsi aad maaragtay u yar
wax adiga fura ku tirisa oo magaalooyinka waaweyn ka jiro hadday u badato ilaa 15-20 gaaraya way ganacsigaasi ganacsi ballaaran ma aha waa mid yaro adigoo dukaaman iyo waxyaabo yar ah runtii laakiin waxaan hadda rajaynaynaa insha Allah maaragtay waqtiyada soo socda iyo muxuu ahaa in wax weyn iska bedeli doonaan sababtoo ah mar walba qofku markuu meel degan yahay ganacsadana uu ka yahay uu ganacsi ka qabanayo wuxuu markasta ku xiran yahay wadankii uu ka yimid wadankaas ayaa runtii muxuu ahaa wuxuu ka qaadan karaa qayb weyn maadaama aan wadan burbursan oo dhibaato badan aan maaragtay muxuu ahaa jaalibahan dibadda aan u joognay qofku hadduusan meesha ka yimid uusan tegi karin ganacsigiisu ganacsi sal lama noqonayo sababtoo ah bulsho kasta oo halkan nagula nool oo qaybaha kala duwan adduunyada ah waxay haystaan wadamo ay maaragtay muxuu ahaa fasax u tagaan kaasoo runtii in badan muxuu ahaa isku xirkaa wadankooda ay la leeyihiin uga faa'iideyn karaa wax ama halkan ay ka heleen ama aqoon ah ama maaragtay muxuu ahaa wax la dhoofinaya ah intaas mar walba waxay ku xiran tahay wadanka adiga aad ka timiday intaas kadib xamse xuseen oo ka mid ah qabanqaabiyaasha kulankan ayaa si diiran ugu soo dhoweysay dalka Netherland danjiraha Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub danjira Cali Fiqi oo dhawaanta dawladda Soomaaliya u soo magacawday in uu noqdo safiirkeeda cusub ee u fadhiya midowga Yurub saacadda safiir xubnaha sharafta leh ee horteeda fadhiya marwooyinka sharafta leh rag iyo dumarba dhalinyarada bahda saxaafadda dhammaantiin waa idin salaamaya walaalayaal iga guddooma salaan hooyanimo salaan soomaalinimo oo sharaf huwan baan idin soo gudbinayaa dhammaantiinba maanta sharaf weyn ayay noo tahay in safiir Soomaaliyeed inuu halkaan noogu yimaado anigu qof ahaan waa markii iigu horeysay 21 sano ayaan dalkan ku noolahay safiir Soomaaliyeed oo noo yimid marka sharaf weyn ayay noo tahay waana kaaga mahadcelinaynaa casuumadda aad naga aqbashay oo aad istiribal dadkaagii ku darso maanta nasiib waxaan ku leenahay inay ku meel gaar dambe ayna jirin maanta safiirkeena ga'dii laguma daraayo ama ka'dii ku meel gaar lama dhahayo waa safiir buuxa sidii safiiradii hore ee Soomaaliyeed sharaftii haybadda ay lahaan jireen waxaan rajaynayaa Dr. Cali qiimo badan baan ku haynaa in aad adiguna hadee la garab qabato oo la gacan qabato diyaar baan kulanahay inaan kula shaqeyno wadankii investmentigii aan gelin lahayn halkaan wixii aan ka qaban lahayn dadkaani waxay u baahan yihiin qarannimo ayaa loo hiloobay waxaa loo hiloobay sharaftii iyo haybadii Soomaaliya ay lahaan jirtay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo soo celiyo khudbad dheer haddaan galo waxa weeye dadkii hore oo aad khudbooyinka u jeclaan ka mid ahay marka sii dayay hadda yaa laga aamusiyay gaaraysa marka qayb inaan ku hambeeyo mudan safiir ku soo dhaweey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkaan ka salaamayaa dhammaan guddiga qabanqaabada suurgelisay in aan caawa kasoo qayb galo shirkan ee magaalada Den Haag. Dad waa mahadsantiin. waxaan kaloo maanta aad aan ugu faraxsanahay inaan meeshaan ku arko professoradaydi iyo professoradii dad colleagues professor Abdi Farah, professor Abdi Hamid, professor Shire, Amar Shire, marka runtii horta aad aan ugu faraxsanahay waxay ii noqotay meel oo maaragtay aan hadda aan isdhihi karo kol marti kumantiid maaragtay intaan bilaabin waxaan meeshaan kasii jeedin horta waxaan rabaa inaan iskiin baro waayo caawo dhan Dr. Ali baa lagu soo koobay marka magacay waxa la horta Dr. Ali Said Faqi Ali da barasho wanaagsan marka runtii aniga dadka khudbooyinka ku fiican mihi marka khudbooyinkay waa soo koobaya mas-uuliyadda marba sibay ku soo gashaa marna waa loo tartamaa marna meel adan ka filnayn ay ka imaanaysaa hadda anoo iska joogo aan shaqaysanahay Mareykanka jooga ayaa mas-uuliyaddan la ii magacaabay runtii waxay ii tahay farxad weyn maaragtay inaan ay maanta
fursad aan u helo ummadeyda iyo waddankeygina wax u qabto. Safaaradan Soomaaliya Benelux maaragtay iyo waxay mas-uul kaloo ka tahay maaragtay European Union. Runtii waa meeshii maanta haddii oo howlo fiican laga qabto meesha oo Soomaaliya laga kicinayo runtii ayay ka mid tahay. Safaaradii hadda ninkii soo arkaa soo arkaa qofkii soo arkaa soo arkay safaaradii runtii 23 sano guryaha safaaradda waxba lagama qaban. Dowladda Soomaaliyeed dowladdii kacaanka Maxamed Siyaad Barre 2 guri ayay meesha ka iibisay. Hal safaaradda waaye wuxuu ku yaalaa meel jid aad u qiimo badan oo la yiraahdo Franklin Roosevelt. guriga numberkiisu waa 66. ninkii rabo taariikhdeedana nin la yiraahdo Ahmed Warsama ila jiro maaragtay asaga ayaa idin sheegi doona. wuxuuna ka mid yahay dadkii runtii u dagaalamay guryahaas in la badbaadiyo. safaaradda runtii 3 dabaq waaye guri aad u qiimo badan laakiin waxaa dhisan kaliya maaragtay xafiis iyo xafiis yar. xafiis weyn oo 3 qofood ay fadhiistaan aniga aan ku jiro iyo maaragtay xafiis yar oo maaragtay musqul u dhow. inta kale ma dhisno. marka waxaa ka shaqeysa ilaa iyo 6 qofood oo ay u badan yihiin dadka localka ah. runtii dhibaatooyin fara badan ayaa safaaraddu ay qabtaa. dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah sida dadka Soomaaliyeed wax loogu qaban lahay. waayo sidaa ka warqabtiin annaga Soomaali ahaan safiir ahaan waxaan mas-uul ka ahay Soomaaliya oo Somali Federal Republic inta ku jirta 2 waddan. waddankan Djibouti waa waddan xor ah madax bannaan dowladdiisa u dhisan tahay. marka dowladda Belgiumka aan u joogno raalli ka dadka Djibouti u dhashay inaan annaga maarkino waraaqa aan u sameyno. marsaas darteed maaragtay hadda waxaa iska dhici jiray waagii hore in dokumentooyin la sameyn jiray. dokumentooyinkaas oo qof kasta oo ethnic Somali la iska siin jiray maaragtay. marka tiina hadda waxay taagan tahay maya ma la bixin karo waana qiyaasi karnaa sababta ay u leeyihiin. marka annaga safiir ahaan mas-uuliyadda aan qaaday waxay tahay nin kastoo Soomaali ah oo dhalashadiisa Soomaali ay tahay oo labadan gobol ku nool maaragtay midoobay wuxuu u leeyahay xaq in wixiisa maaragtay gacmaha laga saaro. haddii lasoo warsado warqad dhalasha ha ahaato baasboor ha ahaado ama documenti kale ha ahaado haddii lasoo warsado mas-uul waxaa naga saaran inaan mataqaanaa safaaradda iiga u furan tahay iyadiina maaragtay maxaa la lahayaa inaan maaragtay wax ugu qabano. problem kalaa jiro oo ah mataqaana dad oo Soomaaliyeed oo maaragtay koonfurta Soomaaliya ku nool ayaa beryahan dambe maaragtay magacooda aad isku dhiibaa baajuunta dadka la dhaho baajuunta Soomaalida oo koonfurta Soomaaliya ku nool. marka dadkii waxaad arkaysaa nin Tanzania ka yimid amba maaragtay ka yimid Mombasa zoonahaas afka Kiswahili ku hadlaya ayaa wuxuu imaanaya safaaradda wuxuu leeyahay aniga maaragtay Soomaali baan ahay laakiin waxaan ahay Juulan ka imaaday ama Jabayan ka imaaday. martiina horta runtii waa anugu adkaatay markee nin dad oo yar oo maaragtay maxaa la lahayaa Soomaaliyeed inaan dembi ka galno marabna waxaan doonaynaa xuquuqdooda hadday Soomaaliyiin gacanta inaan ka saarno. laakiin hadda haddii aad ogtihiin maaragtay aad ogtihiin dad baajuuni ah meeshaan joogaan fadlan nala soo xiriirsiya si aan maaragtay u hubsano inaan mataqaana dadka aan sheeganayo inkastoo dadka sheeganaya ay ka tira badan yihiin baajuunta soo baxday laakiin saas ay tahay waxaan doonaynaa inaan dembi ka galno Soomaaliyeed marabna. inta daraad maraan imid ayaa waxaa la ii sheegay inay maaragtay ay jiraan dad fara badan oo Soomaaliyeed oo sharci la-aan haysato. annaga waxaan u sheegaynaa haddana usii sheega nin kastoo Soomaaliyeed oo Soomaali run ah oo Soomaalinimadiisa la caddeyn karo wax alla wixii documenti oo sharci ah
safaaraddaas ayaa siinaysaa waa weyn. laakiin anaga waxaan diidaynaa inaan documenti nin kastoo socdo, nin kastoo Soomaalida waxay taqaanaa daday la saaxiibaan, familiyaalay la saaxiibaan, waxay leeyihiin familka ana aqaan Soomaali waa laakiin Soomaali ma yaqaan. waxaad ogaatiin hadhowti mid ogaada haddii waraqab kasta aan iska bixino qof kasta aan siino hadhowti idinkii sharcigu lahaa Soomaalinimada documentiga waxaa le documentigan wax jirma aan soo koobo warkayga. safaaradii runtii idinkaas kale mid hadda haddaan mar walba baryootano oo annaga maaragtay maxaa lahaa gaalada le aan wax warsano dhaqanay noo noqotay maanta inaan mar walba wax meelahaas kasoo raadaya soo baryaa lagu dhahaa war baryada ma fiicno, baryada waa la isku naca. runtii ani waxaan qabaa reer Holland meeshaas qolal fara badan ayaa ku yaal, hal qol oo jaaliyadda Holland la dhahay idinka imaada, idinka maaragtay lacagtiina baxsada, idinka fuundiga keensada, idinka la xisaabtama. aniga gacantayma kula waay laakiin balanaan qaadaya, waxaan balan qaadaya qolkaas inaan u bixiyo jaaliyadda maaragtay maxaa la dhahaya weli haddaan si aanan u dhigin maarkino maxaa la dhahaya berito haddii anigaan ka tago magac waa laga bedel derbigaan ku dhejinaynaa, waxaan biraan ka dhigaynaa derbigaan ku dhejinaynaa, waxaan leenahay jaaliyadda Holland ma garat. sidaas darteed marka waxaa idinka codsanaya hal qol oo maaragtay oo idinka aad leedihiin kharashkiina sidaa u keentaan mas-uuliyadda soo saara safaaraddaas halkaas qol ku yeesha. wax alla wixii ku saabsan dhibaatooyinka Soomaalida ay qabto annaga mas-uul waxaan ka nahay Soomaalida kan barwaaqaysan iyo kan dhibaataysan iyo kan xiran iyo kulli mas-uuliyaddeena saaranta. waxaana rabnaa inaan runtii waxyaabo hore loo arkin dadnimada Soomaalinimada inaan soo celin. sida kaliya aan kusoo celin karo waxaa waaye haddaa gacan isiisaan, haddaa gacan isiisaan iyo albaabkayga waa idin furan yahay, telefoonkayga waa idin furan yahay. fadlan waxaa waaye gacanna siiyasaan dadnimadeena soo celin. ballanna waa idinka qaadaya sida hadda ay idinla hadlayo mooye war kalo intaas ka duwan 3 sano kadib 2 sano kadib 1 sano kadib ma igu arkaysaan. marsaas darteed waxaa warka hadda aan ku wada hadalnay ayaa meeshiisa u oolaya ma garatay. sidaas darteed waa idin mahad celinaya, aad baa u mahadsantihiin dhegaysiga ay dhegaysateen. wasalaamu calaykum waraxmatullahi. waxaa 16 September bisha hadda lagu jiro indeeda inay tagtay Soomaaliya ayay waxay la gashay Soomaaliya heshiis wuxuu yahay ma naqaano. waxaan jeclaan lahaa inaad naga jaahil bixisid 900 qof oo Soomaaliya ayaa indeeda rabtaa inay ku celiso waqti dhow Soomaaliya. haddaad wax kala socotid arrintaasi hadda wax naga taataaba, haddii aysan jirinna waxaan kaa codsanaynaa in ay dhibaato badan ay jirto. Soomaalida waqtigan xaadirka ah diyaar ma aha inay 900 ay qaabisho. annagoona og xuduudda iyo sharciga qaxootinimada la adkeeyay, waxaan kaa codsanayaa inaad dhinacaas howl fiican ka gashid. anaga marka ugu horeysa horta wadankan marti aan nahay, marti haddaan nahay inkastoo shuruuc qaxootinimo ay jiraan laakiin waxaan rabnaa marka ugu horeysa shaqo fiican inaan la samaysano, aan tartiib ugu sheegno aan dhahno dadkaan hadda meel loo celinayo oo loo celin karo ma jiraan. midda kalena waxaan rajeynaynaa in maaragtay safaaradda qof inaan u xisaaro arrintaas maaragtay Holland dadka aad sheegaysa Amsterdam qaxootiga inaan anagoo soo marayno wasaaradda arrimaha dibadda ee maaragtay Netherland in dadkii meeshii aan ugu tagno aan aragno xaaladooda aan fiirino. dadaalkeena wuxuu yahay inaan iraano haddaad celinaysaan ninkii volunteer ku baxaayo ha baxo, laakiin ninkaan volunteer ku bixayno la qasbayo ha laga ilaaliyo. anaga ma taageeraysaa. 22 sano horteed Axmed Warsamana waa joogay. safiirada markay warqadda dhiibayaan habeenkii Hilton Hotel ama Sheraton halkan ayaa qol laga qabsan jiray si subaxii safiirka warqadda uu geeyay. hal qof oo Soomaaliyana leesma arki jirin inta safaaradda ka socota iyo dadka markaas jooga. markaan jidka ku soo jirnay inta barnaamijka qabanqaabinayso waxaan wadada jooga marmar waxaan dhahaa waa nasiib badan yahay safiirka. haddana markii sartiya dundunsan iyo rafaadka kale oo aragnayna wadan dhan oo isku dundumay. marka labada dhinacba faa'iidadeeda iyo khasaaradeeda waa leedahay. waxaan wadada horta la heli karin inay maanta wada joogno halkan. ilaahay qadaray. marka welcome.
arrintan warqadaha ayaa anigu su-aal ma qaba laakiin waxaan ka dhiiban lahaa fikradda taladeyda waa qabiira ku ahayd waa ka shaqayn jiray waa ka shaqayn jiray sharciyaqaana waan ahay backgroundkayga laakiin dadka hadda waxaad moodaa inay dadkan wadamadan Yurubta runtii qof walba hadba siday wax u qabato qof ay diidayaan markuu la yimaado warqadaha Soomaaliga ay leeyihiin kuguma soo dhoofin karo dad ay ka soo kaxayaan ama Kenya ama halkan ay keenaan baasaboorka Soomaaliga wuxuu yiraahdaan kuma dhoofi kartid dadka la soo siinay fiisada warqadaha iyaga ay wataan la shabasay safaaradda soo siisay ku keenan hadhow markuu qofkii joogana waxaa la leeyahay warqad ka soo qaada qaarkoodna waxay ku leeyihiin safaaradda Soomaalida aniga waxaan taagnaa inaan waagii hore policy jiri jiray dawladda Soomaalida runtii dad badan oo qaxootiga waagaa ma jirin laakiin waxaa jiri jiray qof kasta Soomaali ku hadli kara Horn of Africa oo looga hadla si hadda sheegaysa dadka aan Soomaali ku hadlaynin waaba joogaan oo afkii aan garanayno Soomaalinimada sheeganay marka runtii waxa waaye dadka Soomaalida waxyaabo badan in la kala saaro fiican oo hadhowti laga fakaro maxay yeelan kartaa ay consequence yeelan kartaa hadda waxaan leenahay dadka ma la celiyaa qasam lagu celiyaa qofka hadii warqad loo qoro oo safaaradda warqad u qorto ama baasaboor Soomaaliya ama ay siiso micnaheedu uma baahna in laga soo weydiiyo gooho ma siin kartaan oo kale anaga waana la dhigi jiray sababta qof wax lagu mahayn warqadna ma jiri jirin dadka loo qoro marka dadkan waxay noqonayaan dad automatic diyaaradii la rabo in la saaro oo ugu horeysa la saari karo sababta waxay haystaan warqada ay safaaradda ka soo qaateen marka taas waxaan jeclaan lahaa Saad Safiir in policy laga soo saaro lagana fikiro background-ka dambeeto waxaad ogaataa dhibka yaala uu yahay hal documenti oo Soomaali wadato oo sharciyeysan ma jiro abda isdeeya laga soo wadaa marka inaan dadka aan eedeynana ma aha runtii sababta waxaan u eedeynayna waxa anagiya isku keenay haddii documenti hataa warqadda nikaaxa aysan markiyo tii nikaaxa haddaysan sharci ahayn maogtahay dhibaato waay ya marka baasaboorka Soomaaliga by the way anaa idin soo xawaan karaa waxaan wataa aniga hadda safiir baan ahay laakiin waa idin tusaaya waxaan wataa visa iyo warqadaan wataa ya marka runtii meesha howl badan u baahan tahay haddaan la helin maaragtay runtii sharaftii iyo aaminaadii waxaa ka weyn in lagu aamino xafiiskaaga haddaan la aaminin nin wax kugu aaminay nin waxaaga aqoonsanaay mar meeshaas dagaal adagaan ku jirnaa waa dadaalaynaa waxaan isku dayaynaa baashaan inaan maarkino baasaboorkii uu qiimo yeesho maxaa la lahayaa wixii xafiiskaas ka baxayna ay qiimo yeeshaan laakiin waa in nidaam ay raacaan meel loo raacay ay jirtaa haddii kale waxaan beritono meeshaan haddana 5 sano kadib baasaboorkii Soomaaliya qashinkaa lagu daadinayo markaas aan su'aasheedu waxa weeyaan dadku wax soo bartay ama academics ama dhalinyaro halkan ku soo galay program ama barnaamijyo ma haysaan sababta saa aragtaan halkan ma joogaan hawlahan lama socdaan the human capital si ay u soo jiidataan ma haysaan idinku wax waa ra'yi fiican loo baahan yahay maaragtay meeshii runtii wadankii capacity la-aan ayaa tahay wadankii waxaa dhacday ninkii gudoomiye degmo noqon kari lahaay oo levelkii gudoomiye degmo noqon kara oo aaminsan inuu gudoomiye degmo noqon karo ayaa wuxuu rabaa inuu noqdo wasiir marka wadankii waxaa ka dhumay waxaa waaye maarkino middle classka oo howsha qaban lahay dhan ma jiro nin walba wuxuu rabaa wasiir inuu kii laba erey qori kara ama jaamacad ka baxay wuxuu rabaa wasiir inuu noqdo runtii maaragtay wadanka waa dhibaataysan yahay laakiin fikirka aad soo jeediseen dhalinyaradiina maaragtay aqoonta leh nala soo xiriira informationkiina waa gudbinayna wasaaradda maaragtay waxaan u gudbinaynaa planning si ay uga faa'iidaystaan maaragtay keligay ma aha ilaahay waxaan ka baryaynaa ummadda Soomaaliyeed qulubteeda inuu isu soo dumo ilaahu xaqana asiibsi ilaahu ummadda Soomaaliyeed midee ilaahu ummadda Soomaaliyeed midee ilaahu ummadda Soomaaliyeed midee ilaahu ummadda Soomaaliyeed midee اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيزي يا غفار يا رحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين فاتح markii uu kulanku dhammaaday ayaa dadka ka soo qayb galay aanu wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan iyo siday u arkaan kulanka ay la qaateen danjiraha cusub ee Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub Dr. Cali Fiqi runtii caawa waxaan maaragtay ka faa'iidnay maxabo aad u badan
waxaa isugu yimid dadkii Soomaalida ururadooda mas'uulka ka ahaa odayaashii inta intultalka aad wax u baratay intaas isugu timiday runtii waxa laga faa'iiday caawa in ummadaas oo dhan ay helaan adeegoodii safaaradeed oo dalka Soomaaliya ay uga baahnayeen runtii waa wax aad loogu farxo aniga diblomaasiyiintii horaan ahaa halkan qunsul baan ka ahaan jiray intaan dagaaladu dhicin maanta iyo markii la isku barbar dhigo inta qowmiyad inta dad organize gareeyay inta ilaahay ajar ka siiya laakiin waa runtii wax aad loogu farxo ay tahay inkastoo safiirkuna uu nala qaybsada maanta inkastoo Brussels ay tahay maartay deegaankiisa laakiin haddana halkan waa qowmiyad badan baa joogta Soomaaliya waa wax loo baahan yahay runtii inuu dareemo sida ay meeshan tahay iyo nidaamkeeda iyo inuu maqlo dadkii dhibaatada ama faa'iidada ay ku qabaan reer Holland hadeen nahay marka runtii waa wax lagu farxo maaragtay waa bilow kulli safiirkuna sidoo noo sheegay waxyaabo badan oo wali hadda safaaradda ka dhiman safaaraddu sidii ahaan jirtay maaha dhibaatooyin badan baa jira dhibaatooyinka badan oo uu maanta isagu la kulmaayo anagu waagaas noocyo kale tay ahayd ama waa ka sahlanayd marka runtii waa wax aad maaragtay loogu baahan yahay labada dhinacba caawa shirka halkaa ka dhacay oo safiirka Soomaaliyeed ku soo qayb galay oo lagu marti qaaday waxaan aad u soo dhaweynayaa fikradaha la isu dhibtin aad bay u wanaagsanayeen iyo inta soo abaabushay intii ka soo qayb gashayba aqoonyahanka iyo waxgaradka iyo garashada iyo haweenka iyo dhalinyartaba aad baan u soo dhaweynayaa qiimaha iyo sharafta leh maadaama aan nahay dad dawlad la'aan muddo badan soo joogay haddana la yiri safiir ay yeelateen baahida aan safiirku u qabnana ay badan tahay taas ayaa igu kaliftay maanta inaan xoog uga soo qayb galo anoo waliba aad waqtiga igu yaraay xafladan maanta aad iyo aad ay u qiimo badan tahay sababta ay tahay waxayna xasuusisay wadankii 22 sano dhibaatadii iyo dawlad la'aantii maanta inaan helnay danjire Soomaaliyeed ee metelaya dawladda Soomaaliya taas ayaa aad maanta dadka meesha isugu yimid niyadooda wax fiican iyo hiddiilo hor leh gelisay adiga shakhsi ahaan maxaa halkan kaaga soo baxay kulankan faa'iido aniga shakhsi ahaan waxaan faa'iiday qof maanta wixii ka dambeeya dawladda inaan ahay waxaan faa'iiday inaan dadka dhibaataysan ee aan hadda wadankan Holland ku dhibaataysan wax badan u wada qaban karno waxaan faa'iidaysanay inaan haddaan isku duubnaano oo midnimada ku dadaalno aan wax badan qaban karno safiirku Netherlands ayuu inagu soo booqday waxyaabo badan oo waxa jiray su'aalo badan oo la weydiinayay ma isleedahay uu qanciyay dadkii uu ka jawaabay ha aad iyo aad si waliba daacadnimo oo aan ahayn diblomaasiya iyo hadal xagga ka doodoonayo markay lahaayeen camal maxaa la yiraahdaa aan furana account oo adiyaan ku dhiibano oo uu yiri aniga waxaad ii dhiibaysaan male idinku saad rabtaan u maamusha waxa aad qabanaysaan anna qayb baan ka ah waa idin la soconaya waa idin la wadaya natiijada kaaga soo baxday marka kulankan maanta ee faa'iidada ugu weyn maxaad isleedahay waxaan isleeyahay Soomaalida rajadii ku soo noqonaysay oo sii xoogaysatay oo sababtu tahay in qof ay siraahdaan waa daacad oo waa aamin oo waa qof Soomaalinimada u dhimanaya oo aan dana kale iyo qashin iyo wax ku mashquulsanayn inay heleen baa mataqaan marka aniga laftaygu aad iyo aad baan ugu sara kacay niyad sami badan baa iga gashay dareenkaas aan ka qabaa Soomaalida iskugu timid oo dhan